wariye cabdimaalik muuse coldoon ayaa maanta xabsiga laga sii daayay waxaana lagu sii daayay cafis madaxweyne cabdimaalik muuse coldoon ayaa waxa uu xidhnaa muddo sanad iyo 2 bilood iyadoo ciidamada booliiska Soomaaliland bishii afraad ee sanadkii 2019 ay ka soo qabteen magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer laguna maxkamadeeyay magaalada Hargeysa cabdimaalik muuse coldoon oo la hadlayay qaybo kamid ah warbaahinta waxa uu sheegay inuu mahad celinayo madaxweynaha Soomaaliland gudoomiyaasha xisbiyada mucaaradka iyo waliba cid kasta oo ka qayb qaadatay soo diintiisa sidoo kale waxa uu mahadnaqay warbaahinta iyo waliba hay'adaha xuquuqul insaanka cabdimaalik muuse coldoon oo ka hadlayay arimahani waxa uu yiri intayna daawanaysa iyo idinkaba waxaan idin xaqiijinayaa maanta inaan xorriyadeedii helay maanta ay taariikhdu tahay 15 Shawaal 1442 hijriya oo waafaqsan 6 bisha 6 2020 anigoo la xiray magaalada Burco laga soo qabtay taariikhdu markay ahayd 17 bishii afraad ee 2019 maanta xor baan ahay ilaahay baan u mahadnaqayaa laka alxamdu ya rabb hatta tarda walaka alxamdu idha radayt walaka alxamdu ba'da rida ilaahay baan u mahadnaqayaa mahadnaqana soo koobi karay waxaan idin sheegayaa haddaad isweydiinaysaan qaabkan ku soo baxay waxaan ku soo baxay cafis madaxweyne ayaan ku soo baxay halkan waxaan uga mahad celinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay soo deyntayda ma magacaabi karayo waa badan yihiin aad bay u badan yihiin si gaar ah waxaan ugu mahad celinayaa oo runtii yani waxa weeye goolkii ugu dambeeyay dhaliyay gudoomiyaha xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan cirro oo runtii ku dadaalay inaan xorriyadeedii helo waxaanan ilaaweyn oo isaguna ka qayb qaatay gudoomiyaha xisbiga ucid injineer Faysal Cali Waraabe oo isaguna siideynteedan ugu dambeysay ka qayb qaatay sidoo kale waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi aqbalaadda uu ka aqbalay inaan xorriyadeedii helo waxaan kaloo u mahad celinayaa qof iyo dhinac iyo hay'ad cid kasta oo ka qayb qaadatay inaan maanta xorriyadeeda helo oo ka xumaa inaan xidhnaado oo ducaynay oo ku taamayay oo rajaynay mar inaan xorriyadeeda helo waxa jira dad iyo aan la garanay oo dacalada caalamka jooga oo aan magacyadooda la aqoon oo khayr weyn rajaynay oo garab istaag weyn muujiyay intan gudaha ku jiro ma doonayo maanta inaan hebel iraado haddaan hebel ku bilaabo hebeladu way badnaanayaan maanta waxaan doonayaa muxuu inaan inta ku soo koobo waxaan si gaar ah oo aan ilaaway oo ay tahay inaan ilaawin hooyaday oo runtii iyadu xidhnayd anigu maan xidhnayn hooyaday baa xidhnayd waxa weeye Burco ay ka imaneysay halkan ay igu imaneysay waxa weeye garabkayga ahayd ehelkayga waxa weeye sida ay igu samreena jazaahumullahu khayr maanta anigu halkan muxuu weeye hadal argosiya ama hadal maaga ka oran maayo waxa weeye maanta waxa weeye waxaan wad ogtiin yani marxaladda ay ku jirno iyo xaaladda ay marayno waa marxalad muxuu ahaayay ay tahay inay gacmaha isqabsano waxaan ku baaqayaa inaynu maanta gacmaha isqabsano waxaan ku baaqayaa inaynu bog cusub furno waxaan leeyahay anigu hadalkii uu ku yiri nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii uu jeelka ka soo baxay walaaladii ayaan aniguna leeyahay waxa weeye shaydaan ayuun baa ina dhex galay wax kale ma jiraan waxa weeye maanta waxa weeye xaqii dambe eegi mayno xaqii dambe waan ka nimi bal xaqo hore aynu muxuu ahay u socono inagoo istoosinayna inagoo isla talinayna Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa